habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaada Kennedy Media wararkan caawidin haynana waxa kamid ah odayaasha madaxda qameedka guurtida iyo waxgaradka beelweynta Binin Ahmed oo raali gelin ka bixiyay niman dhalinyaro ah oo qoryo la baxay kadib markii maxkamadda racfaanka gobolka Togdheer ay xukun dusha uga tuurtay wadaad lagu eedeeyay in uu kufsi geystay kaasoo ka dhashay beesha Binin Ahmed odayaashan iyo waxgaradkan iyo cuqaashan oo raali gelin buuxda ka siiyay dhammaan xukuumadda laamaheeda kala duwan ficilkii xumaa ee nabadgelyo darrada ahaa taasoo ay sameeyeen inama beesha u dhashay kuwaasoo qoryo la baxay oo ku hanjabay inay dagaalamayaan haddii aan si degdeg loo sii dayn wadaadkaas maxkamaddu xukuntay wadaadkan ayaa dhowaan lagu eedeeyay kufsi inuu u geystay ilmo yar oo kamid ah carruurtii uu malcaamadda u dhigayay cuqaasha iyo waxgaradka beesha Binin Ahmed ayaa dhammaan baytay leeyihiin waxay raali gelin buuxda siiyeen xukuumadda laamaha garsoorka iyo dhammaan laamaha nabadgelyada waxaanay sheegeen inaanay beeshu kula socon inamada yaryar ee qoryaha la baxay ficilka xun ee ay sameeyeen iyagoo sheegay inay aad uga xun yihiin wixii halkaa ka dhacay cuqaasha iyo waxgaradka ayaa waxay ballan qaadeen inay soo qaban doonaan oo ay gacanta ku soo dhigi doonaan nimankii dhalinyarada ahaa ee qoryaha la baxay sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay oo iyaguna raali gelinta aqbalay xubno ka tirsan dawladda oo ay ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo agaasimaha diinta iyo awqaafta gobolka Togdheer halkaad naga daawanaysaan waa Kennedy Media anigoo abwaan Kennedy ayaa warkaydii la socodsiinayay daawadayaal muuqaalka share gareeya si uu meel fog u gaadho haddii ay dambarteedan YouTube hore ugu xidhnayna fadlan subscribe saar amaana Allah